عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبنا قيمها بدنا ku xiran bartana YouTube-ka Cabdulla Deeqsi waxaan maanta ka hadlaynaa arinta Samiixa Khalil iyo sidoo kale sixirka ay ku sheegeen dadka faraha badan ee ku jira baraha bulshada oo mid iyo laba la dhihi karin iyo in diris la cabdi sixirtay iyo sidoo kale oo si weyn baraha bulshada looga hadlayo Samiixo oo yaraanta ka hadashay in iyadoo ilmeynaysan si weyn soo bandhigtay wiilkan ayaa muddo badan Samiixta bandhigtay balse saaxiib barnaamijka inta aan guda galin mowduucan xasaasi waana mowduuc aad in badan hada daawan runtii wax xaqiiqada oo jirta waxyaalahan maanta ka hadlayna saaxiib laakiin waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-keena Cabdulla Deeqsi ay ku qoran tahay waad naga akhrisan subscribe-ka wadhalka casaanka naga cadaysan soo kale waxaan ka codsanayaa saaxiibkay qiimaha badanow in aad gabalka furato sidoo kale barteena Facebook aan ku leenahay xogdoon media aad follow-ga soo dhahan soo follow gareey saaxiibayaal sidoo kale waxaan leenahay page kale oo labaad ay ku qoran tahay xog ogaal media kaasi oo xog kasta ku soo gudbino qaasanta arrimaha siyaasadda ka falano kana saaxiibayaal follow-ga saar aad bad mahadsantihiin haddii aan barnaamijkeena guda gallo waxa jira arrin si weyn baraha bulshada qabsatay oo muddadii ugu dambeysay soo shaabaxday taasi oo arrin ka taagan Samiixa Khalil iyo inay sixirley noqotay oo dadka sixirato arinta waxay soo shaabaxday kadib markii diris la soo booqday magaalada Nairobi ee Kenya halkaasi oo kula kulmay Samiixa oo muddo badan la isku xameeyay inay isjecel yihiin balse arinta si weyn soo baxday markii ay tahay kadib markii la arkay Samiixo oo afka ugu goreysay diris wax iyo sidoo kale diris oo kaliya Samiixa ka sheekeynay oo wax kala qabanin hatta haddii qof kale la hadlana in isagoo hatta si beed ugu dhacayo oo xanaaqsan ku dhacaya waa arin xasaasi oo si weyn ay dadku u arkayaan saaxiibayaal markaas ayuu kadibna baaritaan badan oo sameeyeen asxaab ayay sheegeen inay ku ogaadeen inay Samiixa tahay sixirley oo dadka sixirato waa arintaasi oo noqotay mid runtii film waaye dad badan oo Soomaaliyeed oo Samiixa jecel ama taageerayaasha faniskeeda ana ku noqotay mid qaadan waaya iyo mid meel ka dhacay gafay ku tilmaameen runtii Samiixa iyo dirisli waqti badan ay sheegaysan la isku xamanayay inay wada xiriir wada leeyihiin taasi oo anako maanta bil Ramadan ku jirna han ogeyn oo muddo badan han ilaahay dartii aan ogeyn inay dadku isku xantaan inkastoo aan ogeyn markaa wax ka dhaxeeya laakiin waxay si fiican soo shacbad aragtan markay Samiixa buuqat oo dirisli aan raad buuqday Kenya halkaasi oo si caadi ugu kulmay Samiixa ku soo dhaweysay waqti inta ka dambeysana hay isku meel deganayeen guri wax ku soo wada sidoo kale jacayl ay maaragtay ay soo bandhigayeen iyo romanti macnaha halkii ugu dambeysay laakiin wiilkan dhalinyarada ah bartanka muuqdo ayaa soo bandhigay cadeymo kale kaasi oo ku sheegay inay Samiixo dirisle oo ninka labaad amba ninka saddexaad aan ilaahay ugu follow badan amba ugu subscribe ka badan barta YouTube amba dadka faniska ugu caansan amba dadka ugu caansan ee ku jira YouTube-ka kamid ah sixirtay oo ay saaratay geed sixir ah kaasi subhanallah wax arta ilaahay laga magan kala taas oo kale waxa yiri waxay sixirtay dirisle iyo dad kale oo badan kaasi oo sixirkii ugu dambeyn oo dirisle ku dhacay kadibna oo iPhone u iibi iPad u iibi alaab u iibi nacnac wax kasta oo hayay maaragtay gacantiisa ku jiray hay iyadu hadda maamulnayso oo hay xataa wuxuu sheegay aw ku dil gaar qurux ku dhiglo walkan sawirka ku arkaysan waa qurux ku dhiglo iyo gacan qaaday kadib markii uu waan jecelahay Samiixa waa oo kaftan iyo baraankii u nahayd waxay leeyihiin dadkaasi in dirisle waxa uu hadda maraya inuu xataa shilimaadkiisa ugu dambeeyay jeebka Samiixa ku hubsado oo xataa YouTube-kiisa aw maaragtay iyada faraha uga qaado ayuu ku leeyahay ninkani oo Samiixa ma ahna wax kale ba xataa ilaaway reerkoodii dadkoodii waa sida hadalka u dhigay Samiixa waa gabadh runtii romantic iska qof caadi ah san ku ognay oo hanan ku ognay wax sixir iyo waxyaalo falalow iyo xalabalay iyo jin ah laakiin ninkan wuxuu leeyahay Samiixa intii aad sad u aragtaan ba waa qof xun oo geedalay amba si maartay baabka iyo sixirka ku dheeraysa oo isheedana iyo macnaheed cadeymo badan oo soo bandhigay jira kaasi oo ku sheegay xataa inay ishan ka mid tahay sixirka oo ay ku arkay Samiixa waxyaalo badan ayuu soo bandhigay laakiin inaan halkan ka faafayno madoono waayo qaar ba ku alid xataa islaamnimada bil aadanka runtii ninkan waqti inuu dadku u maleyn karo inuu raadinayo caanimo iyo followers badan iyo inuu TikTok caan noqdo laakiin waxa uu maaragtay sheegay cadeymo kale oo xoog ay dadku maaragtay u aamineen markii uu banaanka u soo saaray inay Samiixa oo ku arkay waxyaalo badan oo maaragtay lagu tumo dadka faaliyaasha sixirlowga iyo dadka maaragtay Samiixa ayaa arrinta ka hadashay oo sheegtay inay عفين دوان مادام أو دين تيدا يشرف كذي عيسى وقفي هاي كأرجوسن دوتن نكاس أو لتيكسن دوت واحد كست محكمة عات واحد كستو أي كأرجوسن دو واتن يدو مقال كدو بس أنصور إنك قادني استداس سماح أو كم وقتهم رجوف بدن إني ماركتي سوين وقحن طهي وحيالها أو نكانوا كل واقعي سميحة waxay tiri ninkan ma afin doono maadaama uu diinta soo farkashay wax kasta oo kale hadii uu sameyn lahaa waxaan awoodi lahaa bay tiri in aan iska afiyo
oon iska daayo laakiin maadaama uu diintayda soo fargashaday waxaan awoodin bay tiri in aan cafiyo weligiina ma cafin doonay tiri ee waxaan samayn doonaa wax kasta oo argosiya oo ninkan kaga argosan doono waa isla waqti dhow ayay soo duubtay Dirislo isaguna wuxuu ka hadlay isagoo arrinta ka hadlaya ninkan wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nin nacas doqon ah xataa haddii qofku wax kale ku caayo laakiin inuu diinta bil'aadmiga ama diinteena islaamka ay soo bareed ha ku gafi maadaama qof dhan ku sheegay sixirley inay tahay haddaba arrintan saaxiibayaal marka aan xaqiiqada dhabta ay digala hadlo idinka oo muuqaalkan intiina hore aan idigu saraxay waxyaalaha ninkaas ka hadlay waxyaalaha labada qof ka kala hadleen haddaba arrintan runtii ninkan waxaan anigu markaan si fiican u baadhay aan baahan in badan maaragtay dhinacyada ka hegay waan raadinaya inuu caan noqdo caankan markaad noqonaysana horta waa adag tahay oo inaad caan noqoto laakiin waa inaad hesho sababo aad caan ku noqoto sababahaasi qaarkood waxay ka sameeyeen inay dadka caayaan oo barmogaando iyo fadeexad ka sameeyaan qaarna waxay u soo galaan si qurux badan oo maaragtay waana iyo degay haddaba ninkan waa caan raadis suraantii marka aanu si kasto eegay caan ayuu raadinaya wax ka jira arrintan ma jiro saaxiibayaal arrintu waa saas barteena subscribe ka saara